Assalaamu calaykum saaxiibayaal, halkani waa Caasim Media. Kusoo dhawaada qaybtii saddexaad ee qisadii jacayl Quman iyo Qaasim. Ardaydii markay maqleen Quman in ay waddanka ka dhoofayso waxay abaabuleen xaflad sagootin ah oo lagu macsalaamaynayo. Qaasim wuxuu go'aansaday inuu caawa warcad ka soo qaado Quman, aad ayuuna u labisan yahay. Wuxuu gacanta ku sitaa ubax gaduudan iyo hadiyad uu Quman ugu talagalay. Hotel ayaa la isugu yimid, ardayduna way dhan yihiin. Quman iyadana kama maqana, laakiin waxaa la sugayaa Qaasim oo ahaa shaqsi aad loo taageero. Cabbaar markii la sugayay aadna loo daahay ayaa lagu tashaday in xafladda la bilaabo waqtiga oo yar awgeed. Quman qaadan waa ayuu ku noqday maqnaanshaha Qaasim sababtoo ah waxay doonaysay in ay Qaasim go'aan cad ay ku kala tagaan oo ay hubsato inuu caashiqa ka dhab yahay, maadaama ay berito 10 subaxnimo diyaaradu ku qoran tahay. Xafladdii way dhammaatay, waxayna ardaydii si heer sare ah ku sagootiyeen Quman, waana lagu kala dareeray. Wiil iyo gabar oo ardayda ka mid ahaa ayaa isweydiiyey maqnaanshaha Qaasim, waxayna tageen gurigiisa, balse dadkii guriga joogay waxay yiraahdeen Qaasim intuu labistay ayuu fiidkii naga baxay. Labadii arday waxay damceen in ay baadi doonaan, laakiin meel ay u dhaqaaqaan ayay garan waayeen. Qaasim cid ka war haysa ma jirta, qadar baa ku dhacay oo fiidkii isagoo xafladda ku soo socda ayuu la kulmay 2 nin oo burcad ah oo isku dayay in ay gabar xoogaan. Qaasimna damiirkiisii ayaa siin waayay inuu iska dhaafo miskiintaani burcadda heshay, wuxuuna ka damqaday dhawaqa ka soo baxaya gabadha oo ah alla walaal iga qabo. Qaasim wuxuu bilaabay inuu difaaco gabadha, aad ayayna u dagaalameen, laakiin Qaasim waxay madaxa kaga dhufteen dhagax, wuxuuna ku dhacay dhulka wuuna miir daboolmay. Burcadii markay arkeen inuusan far dhaqaajinin ayay baxsadeen, iyagoo ka baqday in naftuba ay ka baxdo. Qaasim waxaa halkii ka qaaday niman ay u yeertay gabadhii, waxaana la dhigay isbitaalka. 9kii habeenimo ayuu indhaha kala qaaday Qaasim oo soo miirsaday. Wuxuu isku dayay in uu kaco, balse kalkaaliyihii dhakhtarka ayaa ku yiri waa saq dhexe, waana dhaawacan tahay, intuu waagu baryayo ma bixi kartid. 5tii subaxnimo waxaa Qaasim u timid gabadhii uu daraaddeed halista u galay, oo ay la socdaan dad badani. Markay xaaladiisu arkeen inuu nool yahay ayay gabadhii weydiisay Qaasim reerkooda iyo meel lagala xiriiro, laakiin Qaasim wuxuu gabadhii ka codsaday inuu fariin u dhiibo, fariintaasi oo ku socoto Quman. Wayna ka aqbashay, waxayna u dhaqaaqday gurigii Quman oo uu u soo tilmaamay. Waxay raadisaba goor ay 8 aroornimo tahay ayay aragtay guri baabuur hortaagan yahay oo gaari alaab lagu gurayo. Waxayna weydiisay dadkii gabar Quman la dhaho, waxaana lagu yiri gudaha ayay ku jirtaa, hore u soco. Gabadhii markay gudaha u gashay waxay isha ku dhufatay 2 hablood oo wada hadlaya. Midi waxay leedahay ninkaasi waa beenaale oo way careysan tahay, midda kalena waxay leedahay walaal Quman shaydaanka iska naar. Laakiin gabadhii fariinta siday ayaa tiri idinkoo raali ah, Quman waa tee. Intay labadoodaba soo jeesteen ayay Quman tiri waa ikan. Gabadhii ayaa waxay ku tiri isma garanayne, fariintaani ayaan ku sidaa. Quman ayaa tiri yaa kuu soo dhiibay. Gabadhii ayaa tiri wiil Qaasim la yiraahdo ayaa ii soo dhiibay. Quman markii horeba way careysneed, markay magaciisa maqashayna waxay tiri ma arki karo mana maqli karo ee u celi fariintiisa. Halkaa haynoo joogto qaybtii saddexaad ee qisadii jacayl Qaasim iyo Quman. Daawade la soco qaybtii xigta hadduu Rabbi dhaho. Haddii aad channelka cusub tahay nagu soo biir oo subscribe taabo. Tan intaan kulmayna qaybtii xigta, nabadgelyo.